مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. إلهي إنه أقبله ولكن أيضا القرآن كي نجا أخري إسقنا كتسايسية إننا نسيد كله دعاء سي وجود بيس آيات القرآن كي نجا أخري إلهي دريق حقه هدمتين هي نجسوه. أنت هذا بدي تروح عن كسر دوين دونا قدوميها تالية ده أو ينور شيء قدونا كوب كانوا في الدارين هي هالكو كسرده قدومي كسر دوين قدومي عبد الشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. مركه هره waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo guddiga sportiska ee jaaliyadda runtii dadaal badan muujiyay karti dheeraad ah sidii maaragtay koobkan ugu qabsoomi lahaa. waa runtii aad baad ugu mahadsantihiin. waxaan marka labaad rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan kooxihii ka soo qayb galay tartankan kulaylaha maaragtay sanad walba ay jaaliyaddu qabato. gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kooxihii ka kala yimid magaalooyinka Tampere iyo Helsinki. runtii sharaf weyn ayay inoo tahay inaad nagala soo qayb gashaan koobkan. waxaan runtii maaragtay maragma doonto ah in sportisku ka mid yahay waxyaabaha isu keeno maaragtay ama sababa isdhexgalka bulshada. waxaan runtii maaragtay sidoo kale maaragtay iska cad oo muuqata in dhalinyaro fara badan ay maanta maaragtay isbarteen ay maaragtay si fiican isku barteen laacibiin badan oo talent ilaahay uu siiyay aan maanta maaragtay ciyaarahan ka aragnay. waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii aan nahay maamulka jaaliyadda in koobab noocan oo kale ah oo runtii sidan hadda maanta quruxda badan loo dhigay si ka wanaagsan loo dhigi doono insha Allah inaan qaban doono mustaqbalka. mar raba inaan hadalka ku sii dheeraado aad baad u mahadsantihiin dhammaan kooxihii ka soo qayb galay dadkii soo qaban qaabiyey kulankan sportiska iyo cid kasta oo runtii maaragtay kaalin ka qaadatay in maaragtay koobkan uu qabsoomo. waxaa jira kooxo ka yimid Helsinki iyo Tampere oo runtii safar dheer uu sii sugay. marka hadalka kuma dheeraanayo aad baad u mahadsantihiin. waxaan idin rajaynayaa guul. Assalaamu calaykum. aad buu mahadsan yahay gudoomiyuhu. waa siduu sheegay dad baa safar geli doona kulli hadalka dheerayn mayno. waxaan ku soo dhaweynayaa iminkana adeer Cabdullaahi Fahad baan ku soo dhaweynayaa oo kelmad kooban insha Allah isna inoo odhan doona. soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore ilaahay baa mahad iska leh. ilaahayga nagu kulmiyey dhul aan dhulka iyaga ahayn nagu nabad yeelay baa mahadda iska leh. marka labaad waxaa mahad iska leh dadka soo qaban qaabiyey oo jaaliyadda Turku iyo walaalaha kale ee ka soo qayb galay ee ka yimid meelaha fogfog sida Tampere iyo Helsinki. runtii dee war badan meesha uma baahan laakiin mid baan rabaa inaan ka dardaarmo. shalay dee kulleyba xoogaa rabshadaha iska yar rarracay. macnaha la isugu yimaadaa ma aha horta macnaheedu in yacni la isku dila waxa weeye in Soomaalidii dib la isugu soo celiyo iyo walaalnimadii iyo oon cayaarihii gobolladoo kale inkastoo adinku aadna soo gaarin dee gobollada waa la wada ciyaari jiray laysmana dili jirin. haddii khaladaad dhaco walaalka inta badan Soomaalida waxaan ku arko waxaa ka mid ah waad aragteen oo iyadoo ciyaaraha la ciyaarayo qof baa wax khalad ka dhacaya waa in walaalka raalli geliyaa maaha inuu xanaaq iyo ku sii daro. wixii khaladaadoo dhacana canaab ceel weeyaan oo waxan ku dhacay wax kase ma ahayn. laakiin waxaan ka dardaarmaynaa isku imaashaha iyagu inuu farxad iyo walaalnimo dhalo iyo isku soo hilow maaha inuu dhaliyo colaad iyo isnacayb. dhallinyaraad tihiin waxaan kula dardaarmahayaa inaad walaalnimadiinna xoojisaan oo aan marnaba yacni walaalnimada wax madow gelin kara inaan la samaynin. dadka meel fog ka yimid baa runtii waxaan u malaynaysan u baahnayn wax kaloo war ah. waad mahadsantihiin dhammaantiin weliba si khaas ah qolooyinka nooga yimid Tampere iyo Helsinki aad bay u mahadsan yihiin. waxaan jecelnahay berigii hore annagaa tegi jirnay maanta aan bilownay in loo yimaado. waxaan rajaynaynaa hadda kulleyba inaad wixii ceebood nagu aragteen aad noo qarin doontaan wixii wanaagana aad sheegi doontaan. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu warahmatullahi wabarakaatu. adeer aad buu mahadsan yahay kelmadda qiimaha badan noo soo jeediyey. waxaan ku soo jeedinayaa iminkana aan u yeedhaya insha Allah qof ka mid ah martida magaalada Tampere Jamaal Cali ku soo dhawow.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومحسنتين وها محد قاصة لجودية جاليد قابت سبورتية هالك نقوم مرتقاضي وها كلام محله أربيترياش أو نوع أكتسبي قيل ذي بوقي مركا هالكم مسيد رانينو أنا كان واصفينا ولا كان واصفينا ومحسنتين. sidoo kale waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed carab baan ku soo dhaweynayaa ciyaartooyga ka mid ah sidoo kale reer Helsinki. بسم الله ثم الحمد لله إله ما سكله waxaa kaloo mahad leh qabanqaabiyaasha guddiga sharafta leh ciyaartooyda dhammaan taageerayaasha iyo intaan muslimiin oo ilaahay meesha soo keenay waa mahadsantihiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib iyo mahad kadib aadaan ugu faraxsanahay kaalinta iyo kubadda fiicneed aan ciyaarnay waxaan marka hore waxaan leeyahay waa mahadsantihiin raggii naga badiyey waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa kooxdeeda kooxda Kanada waxaan leeyahay si fiican intaad wadaan dadaalkeeda insha Allah nima maalintiisa ay tahay waxaan kaloo ku daray hadduu ilaahay yiraahdo adeer insha Allah wax maana xagga ka geeyay amaan iyo bogaadin waxaan rabaa fursad yar inaan kaga faa'iideysto raggii xalay sida wanaagsaneed ee quruxda badneed noo amaanay noo sharfay guriga nagu qaabilay anagoo maxaa la dhihi jiray waxba aan jeebkeena ka bixin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaasna waxaa u sabab ahaa guddiga sharafta leh gaar ahaan guddoomiye cabdishakuur iyo qabanqaabiyihiisa marka waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin mar walbana diyaar baan u nahay inaan kasoo qayb galno kulankan qiimiga badan maantana taariikhda way idin xusi doontaa waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay maxamed carab kelmadda qiimaha badan loo yidhi dhalinyarada halkan igu sugaysa goorahanba oo aan jecelahay inaanan sii fogeynin laakiin aan waqti yaro gaaban siiyo ku soo dhawaada haddaan ana reersiig fanaankeena oo wada asxaab laakiin farxaddan waxaa iskala reer turku ilaa ayagaa naga badiyey aad u dheer ayo waxaan leeyahay reer turku waa la baashaanay maadaama naga baysan
وعاد عاد تركوا ذيك أسكر باشالك waxaan u malaynayaa runtii waxaan u mahad celinayaa nimanka heesta inoo soo diyaariyey oo runtii aad u qiimo badnayd in yaroo taariikha baa jirto heesaha iyo ku saabsan barnaamijkooda waqtigii allahu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed siyaad barre uu joogay ayaa wuxuu weydiiyey qolooyinka fanaaniinta wuxuu ku yidhi nin horta kuwiina fanaaniintu maxaa dalka u haysan markaasay u soo fikireen waxay ugu soo jawaabeen hees bay ugu soo jawaabeen marka maan idii heesa aniguna idii heesi maayo laakiin waa idii sheegaya kelmadihii ay yidhaahdeen maa idii sheegaya waxay yidhaahdeen habeen iyo dharaar hadalladan dhisnaa afkeenna hooyo oo horu maraan ku hamina marka siday u yidhaahdeen waxay ahayd habeen iyo dharaar hadalladan dhisnaa afkeenna hooyo oo horu maraan ku hamina marka waxaan rajeynayaa anigu maanta waxaan idin leeyahay annaguna waxaan ku haminaa haddaanu jaaliyadda Soomaalida ee Turku nahay inay ummadda Soomaalidu ay midoobaan oo hore u socdaan inta ay joogaan qurbahana ay noqdaan dad muuqda oo meel walba ka muuqda waxba hadalka sii dheerayn maayo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda عربي بعض التقنية بالملايين لكن ما يحكي لنا شيء ما يكاد كسر دوي عبد الرحمن. السلام عليكم. طبعا ارتدمت وأيدي سلامي. سيدا كلا تمنا عاد بيدكم هاد علنا كوحي كسر قيب قال إتاجراشي يا أبو عشي من نقص الضغط عاد بهرت إنكم هاد علنا خاصة كوحها نوع إمادة معرتي فوري كاسنا هلسينك يا تامبرة. طبعا وحواي لو بقول كيلومتر سو جرين شدالك سو بحي قيمه بدل ما عرفتي شرفي ku jirta meelaha koobka wala qaateen
waqtiga way nala dhooreen nidaamkana way nala dhooreen runtii aad baa idinkaga mahadcelinaynaa tartankana kan oo keliya ma ahaan doono mid sii socon doono ahaan doono hadduu ilahay rado insha allahu tacaala dabcan waqtigeen wuxuu marayaa gabagaba mana doonayo micnaha inaa wax badan aan kusii dheeraano hadduu ilahay raado waxaana doonaynaa micnaha saacaddan la joogo inaan guda galno biladihii iyo koobabkii iyo qaabkii lagu guuleystay tartankii hadduu ilahay raado dabcan waxaan uga hormarsiinayaa tartanka inta socda wuxuu lahay horta gudoomiyuu lahay oo tartanka loogu magac daray waadna aragtaa ninkan daadir ninka noogu dheer waaye daadir sidaas daraaddeed micnaha daadir jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada turku waxay ugu tala gashay hadiyad qiimo badan maadaama tartanka qiimaha badan oo inoo qabtay sidaas daraaddeed daadir kusoo dhawow dabcan waxaan ku xijinayaa aalabitri ugu fiicnaay ee tartankan intuu socday wuxuu noqday mahdi ayuu noqday waxaana ku dejinaya insha allah tacaala abu cabdullaahi faad sidoo kaleeto tartankan intuu socday waxaa jiray tartan oo juniorka loo qabtay oo xaafadaha turku ay ka qayb galeen tartankaasna dabcan waxaa albitri ugu fiicnaa noqday caftaax jabaan طبعا خيبت واوين وحي كسو قيب قالوا طبعا توبريال aad u qiimo badan ay wada ahaayeen wiliba qaasatan afarta kooxood ee soo baxday mina afarta tobar oo aad u qiimo badan ahaayeen balse tobaraha aad ugu sii qiimo badan ayaa waxa loo doortay Jamaal oo ah tobaraha Tambare waxaana gudoomiyay Cabdikariim الصورة اللي قال waxaa jirto ciyaartoydii ka qayb gashay ciyaartoy aad u asluub badneed ayaa jirto wayna badnaayeen aad ay u tiro badnaayeen dabcan ciyaaryahanka ugu asluubta badnaa wuxuu noqday abshir oo ah ciyaaryahan Helsinki u ciyaara كنتينيو وتعالى سوري طبعا كابتنك كوحدة هلسنكي بقى لها لي لكن هلسنكي ما مقعد بيكو سعودان او كنا بقى لكن وحين مثلها قبل كاسرينيا مثلها سيدات بلاي waxaa jira ciyaartooy badan oo dhanka goolasha ku tartamaysay dabcan waxaa gooldhalinta ku guuleystay ciyaaryahan u ciyaara kooxda qaran oo magaciisa la yidhahda deeq wuxuuna dhalishay 6 gool waxaana guddoonsiinaya adeer cabdiqaadir
waxaa jirta ciyaaryahanka ugu xirfadda badnaay dhaqaaqiisana fiicnaay dabcan ciyaartoy badanaa jirta sidaas daraaddeed ciyaaryahankaas wuxuu noqday ciyaaryahan cabdixakiin oo u ciyaara tambare waxaa guddoonsiinaya cabdullaahi cimow dabcan inta aanan koobabka aanan galan waxaan rabnaa hadiidaha inaan dhammaystirno ciyaartoyda oo juniorka ahayd qaybta yaryarka oo juniorka waxaa ku guulaystay dhanka gooldhalinta waasic oo dhashay 8 gool sidoo kale isla tartanka dhalinyarada caruurta yaryar waxaa noqday best player ama xidig ugu fiicnaay isla waasic waxaana guddoonsiinaya cabdilaahi faad ciyaaryahankana aragtaan wuxuu ku socda kooxda fariso tartankaas dhalinyarada caruurta intuu socday ciyaaryahanka ugu asluubta badnaayn wuxuu noqday axmed oo halinin waxaana bixinaya adeer cabdiqaadir طبعا كوحها اسمه صوب حي اسمه فينا الكوحين هاي أفر كوحات أفرت كوحنا كوحنا كالين تسدحات كشيء انتو من أفرت كوحات وحين نقطي كوحة ذي كسعتي تامبري وحلو يريا كابتن كتامبري سوري برادر تامبرو إذا لا بايع إن شاء الله با كده فاسر كثير كلا حد ما اسطوري كذا waxaa guddoonsiin doona adeer cabdullaahi fahad kabtanka tambre tabiba
sidoo kale waxaa loo yeerayaa Canada oo kaalinta lamaad gashay dhammaantood oo loo wacaya مع الفرانكو هذا